anoo ku hadlaya afka gudida garoonka gacanta ku haysa waxaan leeyahay garoonka cusub ee Burco yeelatay oo guul u soo hoyatay bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan dhalinyarada waxaan u aragnaa in halkan hawsha ka socota horumar uu gobolka Togdheer leeyahay insha Allah garoonkan cusub ee gobolka Togdheer loo dhisayo waa hanaqaad iyo horumar u soo hoyday gobolka Togdheer garoonkan cusub ee laga dhisay magaalada Burco aynu joognaa waxa weeyaan himilo jirtay iyo horumarkeedu la gaaray maanta garoonkani wuxuu ka mid yahay himilooyinka ay dhalinyaradu ku hiigsanayso mid ka mid ah garoonkan halkan laga dhisaya waxa weeyaan waxaan u helinay dhalinyarada kubadda ciyaarta dhamaantii garoonkan waxaan u arkaa horumarkii iyo guushii ugu weyneyd ee Soomaaliland la qabto waxa kaliya ka horeeyay garoonka Berbera garoomada kale aan ku faano Soomaaliland intay jirtay garoon la dhisay ma jirto laba garoon waa garoonkan iyo garoonka Berbera waxaan u arkaa garoonka cusub ee degmada Burco himilo iyo higsi rumoobay oo dhalinyaro iska isku xilqaamtay ay u kacday garoonkan ay maanta Burco yeelatay waxaan u arkaa in jidkii guusha maanta qaadnay waxaan u arkaa rajo rumowday iyo horumar ballaaran oo soo hoyday gobolka Togdheer iyo galeelida iyo dhisid garoon cusub oo kubadeed oo waliba noociisa casriga waa horumar ballaaran oo soo kordhay gobolka Togdheer garoonku waa himiladii dhalinyarta waxaan u aragnaa horumar soo kordhay oo la taaban karo garoonka gobolka Togdheer ku soo kordhay waxaan u arkaa horumar ballaaran oo ah aasaaskii bulshada waana waxqabadkii ugu weynaa waxaan u arkaa horumar soo kordhay dhalinyarada gobolka Togdheer gaar ahaan degmada garoonka waxaan u aragnaa garoon ay gaadheen dhalinyarada gobolka Togdheer guulna ay ku soo hoyeen qaranka Soomaaliland